waxaan kaga warrami doonaa xiisad ka taagan xadka u dhexeeya wadamada Suudaan iyo Ethiopia. halkaasi waxaa toddobaadkanba ka jiray xiisad colaadeed oo u dhaxaysa labada wadan ee Ethiopia iyo Suudaan. laba ciidan oo ka kala tirsan militariga Ethiopia iyo kuwa Suudaan ayaa la sheegay in ay ku dagaalameen xadkaasi 2 maalmood ka hor. ha yeeshee dagaalkaasi oo dawladda Suudaan ay sheegtay in ciidamo ay iyadu leedahay oo halkaasi ku sugnaa ay kuwa Ethiopia ku soo qaadeen weerar gaadma isla markaasina khasaare kala duwan uu ka dhashay laguna dilay sargaal ee ka tirsanaa ciidamada wadanka Suudaan ayaa lagu soo warramayaa in haatan xiisadu ay meel adag marayso isla markaasina labada wadanba ay ciidamo ku soo daadgureynayaan xadkaasi u dhaxeeya. dabcan goobtan waa goob horeyna aan uga soo warranay labada dalla ay in muddo ah isku haysteen oo qolo waliba ay lahaanshaheeda sheeganayso. arrintaasi ayaynu ka hadli doonaa. waxa ila jooga jaamac galad waan ku soo dhaweynayaa kadib bal waxaad xog naga siisaa xadkan Suudaan iyo Ethiopia u dhaxeeya xiisada ka jirta. bismillaahir rahmaanir rahiim mar kale waan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan salaamullaahi calaykum. niyo horta xadka Suudaan iyo u dhaxeeya maxaan ku idhahdaa Ethiopia de murankiisu mid muddo dheer soo jiray buu ahaa. waxa lagu murmahayana waa wax la isla og yahay de cidda leh iyo dadka ama dalka uu ka tirsan yahay dhul ahaan ama juqraafi ahaan, laakiin nooc indha cadays ah oo maaragtay yani ku qabsa ku qadimaysida haddii aadan wax iga siinin yani adiguna maxaan ku dhahay nabad ku joogi maysta camal haddii kale aan qaybsanno oo qayb iga sii adigu magaca yeelo manfacan anigu aan yeesho camal waa wax noocaasa yaa horta meesha ka taagan mooyaane dhulka lahaanshihiisa juqraafi ahaan waa la isla ogol yahay cidda iskale oo dalka Suudaan baa la Ethiopiana way ogoshahay oo maxaan ku idhahdaa way u aqoonsan tahay inuu yahay dhul Suudaan ku yaala. laakiin muhiimadda waxay tahay iyada oo sidaa u aqoonsan baa haddana waxay leedahay dhulkan maaragtay Suudaan ma lehe waa dhul naga dhaxeeya oo aan doonayno maxaan ku inaan wada manaafacaadsanno oo sidaa maaragtay qeylada u gelinaysaa. marka kolba waxba adigu marxalad baa ay soo marayeen oo muddo hadda laga joogo qiyaastii adigu 92 xilliyadii ay ku beegnay 93 yaa ciidamada Suudaan ay maxaan ku idhahdaa heshiis ay galeen iyo maxaan ku idhahdaa xilligaas dawladda meel ku gaarka ahayd Ethiopia oo madaxweynaha ka ahaa Malla Zanaawi yaa lagu yiri bal ciidamada aan kala qaadno aan wada nacfisanana inta aan heshiis rasmi ah ka gaadhayno. ciidamada Suudaan sidii dib ugu baxeen ciidamada Suudaan markay sidii dib ugu baxeen beeraley axmaara ah ya meeshii maaragtay yaa la dajiyay oo tagtay oo tira go'an maaragtay oo loo dawlad ay heshiis ku yihiin ya meesha ku tageen. meesha markay u tageen 2 bilood iyadoo la jooginba xaaladu meesha caadi bay u qabsatayba. Malla Zanaawi wuxuu yiri Allah idinku sii jeediyo ku guura buri daga. halkaas marka waxa ka dhashay ciidamo hubaysan oo beeraleydii axmaarada ah oo maxaan ku idhahdaa noocyada kala duwan ee hubka maaragtay xitaa qoryaha waaweyn ee la jiido kuwa haysta yaa adigu meeshii isugu tagay. ciidamada militariga Ethiopia dushay kala soconayeen say doonayba ha noqoto adigu dhawaan markii Ethiopia ay qararaasaha gashay yani Suudaan xilliga iyada ah waxa ku oognaa gudaheeda holcayay oo meel kale kuma ayna maaragtay kan shahaynin. Suudaan tan qoladan hadda Suudaan koonfureed la baxday ee dagaal kula jireen waxa kale oo jiray qabaa'il waa intayna kala bixin labada Suudaan waa intayna kala bixin waa 90 iyo dhowr weeyaan labada Suudaan hadda ahayd waxay ka baxday Soomaaliya 2011 marka dagaal waliba culus oo aad u culus oo reer galbeed iyo dalalka Afrika oo dhan ay taageerayaan yaa ku socday markaa Suudaan. taasi marka waxay dhinacan kale isla gobolkan naftirkiisa dagaal baa kaga socday. gobolkan hadda yani muranku uu ka taagan yahay waa 3 gobol oo dad maxaan ku idhahdaa inta badan socota dadkan maaragtay immigrants ka la yiraahdo Soomaali baa ugu badan ba hadda gobolkan la yiraahdo Al-Qardiif miya wax noocaas ah leeyahay Soomaali xagid Mooch oo kuwii joogay Xumayro oo kala diiday waa Soomaali Saudi waa Soomaalidii kulli waxay kamid ahaayeen baan jeclahay ciidamadii Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo maxaan ku dhahay Ruwaanda joogo kale Mahdigii Suudaan ciidankii ka garab dagaalamay iyo adoo dad noocaasa laakiin dadka jooga ee maaragtay deegaanka hadda Al-Qardiif u badan Al-Qaradiif wax noocaas la yiraahdaa ugu badani Soomaalidu qayb bay ka tahay. populationka waxaa kamid dad Nigerian waxaa kamid dad Ghana iyo ka yimid dad Chad ka yimid adoo dad muslimiin ah oo Afrikaan oo is aruusay Yamani baa ku jirto oo
Eritrean baa ku jiro oo Tigray baa ku jiro oo yani dad noocyo badan weeyaan marka dagaalkaasi ka socday gobolkaasina qayb buu ka ahaa Ethiopia inay ku dhiirato yani gobolkan ilaa markii dambe maxaan ku idhaahdaa waxa la siiyay 3 gobol oo aan jecel Eastern States baa la isku yiraahdaa waxa la siiyay Confederation inay iyagu samaystaan madaxweynahooda maamulkooda baarlamaankooda waxooda inay samaystaan maxaan ku idhaahdaa markii madaxweynaha ay gobolku soo magacawdo madaxweyne ku-xigeenka dawladda Suudaan baa soo magacaabaysa oo ku daraysa hadii madaxweynaha dawladda soo magacawdana madaxweynaha dawladda soo magacawdana madaxweyne ku-xigeenka dadka dooranaya qaab yar maartay noocaasa yaa lagu xaliyay oo marka waa dawlad goboleedyo ka maartay qayb ka maartay Suudaan laakiin haddana iskood iyagu isu maamula waxa ay la wadaagaan Suudaan waa lacagta iyo ciidanka militariga ah iyo maxaan ku idhaahdaa baasaboorka iyo maartay adigu wax noocaas yay la wadaagaan oo common ku yihiin Ethiopia marka iyadoo oo kala qaybsanaanta ka faa'iideysanaysa iyo Suudaan maartay dhulkan yay dayacday hadda markii qalaaso Ethiopia markeeda ka bilowday iyo Suudaan u soo dhaxgelisay la wareegtay Ethiopia kamayna hadlin maxaan ku idhaahdaa hawsheeda iyo qolo walba iska wadatay waa taade daraato ay ciidamada militariga Ethiopia ay maxaan ku idhaahdaa weerarka ay ku qaadeen weerar dhinacyo badan buu ahaa weerarku markii ciidan kolonyo ah oo ama meel deganaa ama maartay lagu qaaday waxaa loo sii qorsheeyay ciidamada kale ee gadaal ka imaan kara ee soo gurman kara ilaa ciidankan unaysan ciidan yar badan ahayn waa lagu xisaabtamayay moogtahay sargaalka ciidanka hogaaminayay meesha lagu dilay iyo 4 sargaal oo kale oo Suudaaniis Suudaaniska dharbaaxa adag baa ku dhacday dharbaaxa kulul baa ku dhacday waa meel dhexe oo gudaha dalka Suudaan oo ciidankiisa gurmadka ah sargaalka uu watay markay ilaahay ciidankii waa maaragtay waa weerar baa nagu socday soo gaaray dhaheen ciidankii soo gurmaday waxa ku jiray sargaalkii aagaas oo dhan haystay yaa dhexda loo galay isagii iyo 4 kale iyo maxaan ku idhaahdaa waa tadee firinfirka loo qaaday oo sargaalku markii la dilay gurmad buu ahaa sargaalku ciidanka xoogiisa ciidanka weerarku uu ku bilowday ciidan roonda ah ay ahaayeen ama patrol oo ciidanka maartay gaafmeera xuduudaha oo ilaa 5 ama 6 gaari ah oo aan maartay deesaa u sii hubaysanayn yay ahaayeen ciidanka marka patrolka ah waxa weeyaan markii dhowr saacadood la joogaba marbay meesha marayaan haddana markii dhowr saacadood kale la joogaba marbay meesha marayaan waa markii amnigu uuna sugnayn ee maartay xaaladdu ay cabsi ay tahay ciidanka marka xoog galana uu ka dambeeyaa ciidankii marka xoog galahaa ee ciidankan sahanka soo diray weeyaan ciidanka dhexda loo galiyay ee dagaalka khadhaadh uu qabsaday kuwani markii yani la weerarayba iyagu waxa weeyaan taqalan qalay ka baxeen sida yani maartay ay u muuqato marka waxay doonayba ha noqoto khasaaro lixaad leh iyo halka ka soo gaaray dawladda Suudaan isla markii way ka hadashay Ethiopia way u aamustay maalinkii shalay ahaa marka yaa Suudaan waxay ciidan haysay waa soo daabushay meeshay soo dhoobtay ra'iisul wasaaraha Ethiopia isaga ciidanka diray moogtay ciidanka weerarka geysanaya isaga diray moogtay ma ogin buu anagu waxa meesha ka socda shaqaba kuma leeyin waxaas anagu yani anagu wax hawl maartay anagii Suudaan waxaan nahay 2 dal oo saaxiiba 2 dal oo daacad isu ah 2 dal oo isjecel 2 dal oo wax walba ka dhaxeeyaan kuwa isku dayaya inay maartay dhexdanada ay colaad ka abuuraanna waxa weeyaan waan iska qabanaynaa laakiin ciidankaas meeshaas waxa ka dhacay anagu hawl noo taalana ma aha shuqulna kuma lihin waana maartay waxaan ku talagalay waxaan ognahayna ma aha waana baaraynaa waana dabagelaynaa marka wakaasa laakiin anaga Suudaan waxaan nahay 2 dal oo saaxiiba oo maxaan ku idhaahdaa si conform ah u wada shaqeeyo oo aanay jirin wax maartay colaad iyo wax dhibo ka dhaxaysa hadda ogow 3 maalmood ka hor ra'iisul wasaaraha Suudaan Abdullah Hamdoun miyaa dhahaa Hamdoun yaa intay isugu yimaadeen meesha heshiin waayeen bay kala tageen cara ku kala tageen adsoo markii manay 2 maalmood inuu jooga qorshuhu ahaa 2 maalmood joogitaan qadiyada laga wada hadlayay mas'uuliyadda inay caawisay Ethiopia oo dagaalka Tigray laga caawiyo ma xaqiiqda waxay ahayd fiiri xaqiiqda waxa wafdi Eritrea ah ka horeeyay wafdi oo tagay meesha la yiraahdo Suudaan wafdiga Eritreanka ee Suudaan tagay waxyaabihii ay u tageen waxa qayb ka ahaa in Suudaan ay ciidamadeeda kala soo baxdo maxaan ku idhaahdaa xadka Ethiopia ay kala soo baxdo gudaha maxaan ku dagaalkana ay nagu taageerto wax noocaas maaragtay yaa adigu loo dhigay oo maartay si rasmi ah looma sheegin midan gudaha Suudaan Ethiopia ciidanka kala soo baxa Tigray la sheegay Tigray laakiin caadi u sheegeen laakiin qayb bay ka ahayd
suudaan waxay tihi hawshan hawl idintaa lama ahe ordaha maaragtay eritrean meeshiini ku noqda annaga iyo Ethiopia wax naga dhexeeyaan hawl idinka maaragtay soo dhexgelaysaan maaha ha tan Tigreegana maxaan ku idhahdaa Ethiopia dhexdeeda idinkaaba faduul maaragtay faragelinta ugu sameeyay iyadana ka sii daaya hawl noo taal lama ahe maalin kadib waa kii uu imaaday Cabdalla Xamduun markuu imaaday waxaa qorshaysnaa maxaan ku idhahdaa socdaal 2 maalmooda inuu ku joogo magaalada Addis Ababa oo arrimo badan ay kaga wada hadlayaan wala afgaran waayo wuxuu muhiimadda waxyaaluhu u socdeen waxaa ka mid ahaa maxaan ku idhahdaa qaxootiga Suudaan iyo shirka IGAD ee lagu qaban doono Djibouti 20ka bisha wixii ajenda ah ee laga wada hadlayo iyo qaabka maaragtay loo wajahayo iyo waxyaalo adigu noocaasa yaa jiray markii meesha la isugu yimid ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu yiri marka Eritrea ku timid maxay ku tiri ruux Eritrea nutri iska daayay hawshan aan kula soconay